Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa daahfuray mashruuc lagu shaqaaleysiinayo boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed sida warkan ay noogu dhameystirayso wariyaheena Nimco Cabdi Salaan. barnaamijkan ayaa waxaa fulinaya dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay maalgelinayso hay'adda horumarinta caalamiga u qaabilsan Mareykanka USAID oo bixinaysa 1.6 milyan oo doolarka Mareykanka isla markaana ay ka qayb qaadanayaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa furay mashruucan lagu maalgelinayo qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh hal abuurka ganacsiga taas oo ay ka qayb qaadanayaan horumarinta iyo dhaqaalaha dalka. faa'iidooyinka gaarka ah ee mashruucani dalka iyo dhalinyarada u leeyahay waxaan isleeyahay waxa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, barashada xirfado iyo shaqo abuur, ka mashquulinta dhalinyarada dembiyada iyo xagjirnimada, ujihaynta dhalinyarada mustaqbal ifaya, madax bannaani iyo isku filnaansho nololeed iyo abuurid ururo ganacsi iyo iskaashatooyin. sidaas daraaddeed maantay waxaan aaminsanahay inay tahay maalin ka tilmaaman maalmihii aan soo marnay, waayo waxaa joogta ganacsato Soomaaliyeed oo isu soo xilqaamay inay rajo geliyaan dhalinyaradooda, maal geliyaan dhalinyaradaas. barnaamijkan ka faa'iideysan doonta ay yihiin dad Soomaaliyeed oo matala dhammaan Soomaaliya oo dhan kana kala yimid gobollada Soomaaliyeed oo dhan. waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garowe, Qardho iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir. mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo horumarka ka sokow. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah siinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed si ay dalka wax uga bedelaan iyada oo maalgelin iyo tayeyn la xiriirta aqoontooda dib ugu sareysiinaysa. Nimco Cabdi Salaan Maxamed, SBS TV, Muqdisho.